walaashaydu way xabsan maxamed luqmaan la dhahaa gabar oo ganacsade ahayd iskool mar dhow soo dhamaysay iskoolka markay soo dhamaysay ganacsi ay ku biirtay ganacsiga taana aniga u furay markaan gabar yar oo 22 jir waaye marka waxaa laga afduubtay iyadoo dukaankeeda joogta ayaa laga waday gabar ayaa waday dukaankay ka waday waxay tiri meel gabar oo maaragtay maraan gadaal ka wareysanay oo ganacsi waxba kala dhaxeeyeen aa waday meel kayoole la dhahay geysay weligeeda aysan tagin meesha markay geysay xilli oo waxay ahayd oo maqrib ah salaada la gaaray salaaday tukanayna dhahday salaadii ay tukatay ayadoo salaadii tukan aysan ka bixin oo sujuudda ku jirta ayaa laba nin oo rag ah ayaa u imaaday wayna qabteen ay dhahday duuntay qabteen afkay maaragtay waxyaalihii oo meeshii ku yaalay oo maaragtay oo qashinka afka u aruuriyeen way ceejiyeen hataa waa dhiman gaaray dhahday maaragtay xoogihii oo jaraaxada maaragtay meeshay kasoo gaartay adeelaa kulli xaal meeshii markii laga afduubtay salaadadii ay ahayd ilaa hadda way maqneed waxaa nagu maqaalo ah in gabadha la helay warkaas maxay ka jiro ها gabadha waa la helay saakana la soo helay waxaa laga helay meel oo maaragtay xaafada Kayoole meel kamid ah ayadoo guri ku jirto ragii oo afduubteen markii oo baad goob lagu qabtay ayaa meesha ka xarreen gabadhana waxay isdareentay in maaragtay uusan qof la joogin way qaylisay jiraankii ayaa maqlay jiraankii ayaa u imaaday markan albaabkii qoful muusan saarnayn waa laga furay waa laga soo bixiyay markaasa markay ka soo saareen ay booliska u geeyeen sidee lagu helay gabadha gabadhii dawladda baad goob ay ku jirtay raggii waxa ka dambeeyay daba ordaysay way isceersanaayeen laakiin adi maadaama ay gabadha guri ay ku xirneed aan la garanaynin ayadoo guri ku jirtay maaragtay intaasoo beri joogtay ay isdareentay inay keligeeda ay tahay uusan maaragtay xarig ku xiran yahay oona uusan qofna la joogin 5 beri ay meesha ku jirteen aysan waxba cunin waa tahay si guud marka helitaankeeda ayaa gacan ka geystay si guud waxaa ka geystay dawladda oo maaragtay Kenya ka geystay marka gabadha la helay jirkeeda wax dhaawacyo ah ma ka muuqdeen wejigeeda iyo gacmaha ay maaragtay aad ay ka muuqdeen dhaawacyo waa tahay hadda xaalkeedu waa sidee hadda xaalkeeda isbitaal ay ku jirtaa filimba ayaa ku socota maaragtay xoogahoo jirkeedii muscleski dhan ayaa dhacay jirkeeda ayadaas cunaysay intaasoo beri joogtay jirkeeda waa is cunaysay hadda alxamdulilah hadda filimba ayaa ku socota ma jiraan cid ilaa iyo hadda loo soo qabtay falkaasi ee afduub cid way jiraan cid loo soo qabtay kuwana maaragtay oo gacan haddana weli laguma dhigin laakiin inay maaragtay maanta iyo xalay dhan waa la daba ordaayay marka qaar laga haayaa jirta waana la ogyahay waxay fal ka galay dawladda way ka warqabtaa wayna soo wada qabanaysaa hadda xaggee wax marayaan hadda walaahi meesha waxay meesha marayaan hadda waxay loo taagan tahay waxaa waye gabadha isbitaal ay ku jirtaa anigana isbitaalkaan joognaa meesha maaragtay aan gabadha iskaga daaweynahayna qorshihiina marka muxuu yahay qorshaheena waxaa waye dawladda waxaan ka dalbanaynaa in maaragtay nimankii oo falkan galeen inay maaragtay oo gabadha xaqeeda